haddii aanan dhulkaygo dhuux cadaawa ku karin haddii aanan dhulkaygo dhiig kuugu fooldhegin haddii aanan dhulkaygo gobanimaada soo dhicin soomaali kama dhalan bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal daawadayaal kusoo dhowaada qaybtii labaad ee barnaamijka aan uga hadlaynay waa maxay ciidanka xoogga dalka soomaaliya maxayse tahay marxaladihii ay soo mareen maanta waxaan uga hadli doonaa haddaba waa sidee xaaladda ciidanka xoogga dalka soomaaliya mase helaan xuquuqdooda aasaasiga ah ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa haatan helin xuquuqdoodii aasaasiga ahayd sida mushaharaadkooda daryeelkooda iyo ka warqabka horumarinta shaqadooda ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa sannadihii dambe waxay saaxiib la noqdeen daryeel la'aan iyo xaalado adag oo u baahan in lala wadaago si ay uga soo kabtaan burburkii gaaray sannadkii 1991dii madaxweyne walba oo dalka hogaamiya ka noqda waxa uu ballanqaad aan afka dhaafsiisnayn u sameeyaa ciidanka xoogga dalka soomaaliya haddana uma filiyo sidii ballanqaadku ahaa balse waxaa wax lagu farxo ah iyada oo ay intaasi oo dhan haystaan haddana weli ma joojinin shaqada qaranka iyo difaaca dalka taasina waxay caddeen iyo ammaanba u tahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inaysan ahayn kuwa dhuuni raaca balse ay yihiin wadaniyiin dhaba kamaan guran uniga bamaan cunin tamira kamaan guran uniga bamaan cunin kuma dhaqadan magaca dhegaystayaal daawadayaal qodobka labaad waxaanu ku eegi doonaa darajooyinka ciidanka sida ay u kala sareeyaan marka ugu horeysa ee shakhsiga ciidanka ah lasoo carbiyo amaba lasoo tababaro ee uu dibowg uu ka soo baxo waa askari buuxa markaas kadib ayuuna u gudbayaa darajada koowaad oo ah dable intaasi kadib waxaa halkaa ka bilaabanaya in darajadiisa ay sare u sii socoto darajada koowaad wuxuu noqonayaa alifle oo astaan ahaan u eg xarafka v ee luqadda ingiliishka oo cududda gacanta dareyska kaga taal darajada labaad wuxuu u gudbayaa laba alifle astaan ahaanna ah laba v wuu sii soconayaa oo waxa uu u gudbayaa 3 alifle oo calaamad ahaanna ah 3 v haddaba halkaa wixii ka dambeeya alifkii wuu ka harayaa wuxuu u gudbayaa darajadii afaraad waxana uunu noqonayaa markaasi xidigle waxa ayna dul taagan tahay amaba ay dul saaran tahay garabka dareyska waana sarkaal xidigle ah waxaana ka amar qaata cidda sidata darajadaasi mid ka hooseysa waxa uu u gudbayaa kadib laba xidigle darajada lixaad waxay noqonaysaa 3 xidigle markaasi oo uu noqonayo ku-xigeenka gaashaanle haddii uu jiro 3 xidigle isaga la mid ah oo ay isku darajo yihiin laakiin shaqada askarta kaga soo horeeyey isaga ayuu ka amar qaadanayaa
oo waxaa la odhanayaa asiyaanita ayuu ka leeyahay. sida ay u kala horeeyaan ayay salaanta iyo awaamiirtana u kala qaadanayaan xagga ciidanka. markaa wixii ka dambeeyana wuxuu u gudbayaa darajadii 7aad, waxa uuna noqonayaa gaashaanle hoose. waxaa ku xigi doonaa gaashaanle dhexe ilaa uu ka gaaro gaashaanle sare. darajada gaashaanluhuna sida ay hoose, dhexe iyo sare u kala leeyihiin ayaa haddana loo kala sareeyaa loona kala amar qaadanayaa. markaas kadib ninka darajada ka qaata gaashaanle waxa uu u gudbayaa ama u dalacayaa sareeyo guuto. waxaana ku xiga sareeyo gaas janan oo afka qalaadna lagu yaqaano marshal. dhegaystayaal, daawadayaal, qodobka 3aad waxaanu ku falanqaynaynaa maxaad kala socotaa dagaalka ay Soomaalidu inta badan ku faanaan oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna ku mutaysteen in loo aqoonsado ciidanka ugu awoodda badan Afrikada Bari. dagaalkaasi wuxuu ahaa dagaalkii xoreynta Soomaali galbeed oo dadka qaarna ay ugu yeeraan dhulka Ogaadeniya. wuxuu ku bilowday jabhado u dhashay deegaanka oo Soomaaliyana tababar iyo taakulaynba ay siin jirtay, kuwaasoo dagaal gobonimo doon ah ka waday deegaanka Soomaali galbeed oo ay xabashidu gumaysato. balse dagaalkii wuxuu u gudbay dowladda Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya, iyadoo ujeeddada dagaalkuna uu ahaa in Soomaali galbeed laga xoreeyo xabashida. dowladdii wakhtigaas Soomaaliya ka jirtayna ay ka go'nayd in gobolka laga xoreeyo xabashida wax kastaba ha qaadatee. toddobaadkii ugu horeeyey ee dagaalka waxaa ciidamada Soomaaliya u suura gashay in ay gacanta ku dhigaan bartamaha iyo koonfurta Soomaali galbeed. intii uu dagaalku socday waxaa ciidamada Soomaaliya marba marka ka dambaysa ay ka soo hoynayeen guulo aad u ballaaran, iyagoo eryanayay ciidamadii Itoobiya ee jabka iyo saxariirta haysatay ilaa ay ka gaareen gobolka Sidaamo. Sebtembar 1977 ciidamada Soomaaliya waxay gacanta ku dhigeen dhammaan gobolka Soomaali galbeed. waxaa kale oo ay qabsadeen magaalooyin dhowr ah oo muhiim ahaa. kadib markii ciidamada Soomaaliya ay go'doomiyeen magaalada Harar, waxaa dagaalka soo galay Midowgii Soviet oo u hiilinayay dowladda Itoobiya. Midowga Soviet-ka waxa uu taakulo dhan waliba ah siiyey ciidamadii Itoobiya ee jabay. waxaa kale oo uu dagaalku soo geliyey in ka badan 18,000 oo Kuubaan ah iyo tiro aan la ogeyn oo madaafiicda goobta hogaaminayay oo ayagana ka yimid dalka Yemen. ciidamada Soomaalidu aad ayay tiradooda u yareed markii loo eego kuwa isbahaystay ee ka soo horjeeday. halka askari ee Soomaaliga ah waxaa ku soo aadayay 12.5 askari oo isbahaysiga ah. Midowga Soviet-ka oo muddo dheer xulafo la ahaa Soomaaliya soona tababaray ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo saraakiisheeda, wuxuu si cad u diiday in Soomaaliya dagaal la gasho Itoobiya oo markaasi markiism qaadatay, xulafana la ahayd Midowga Soviet. waxaa jirta ooraha dhahaysa siyaasadda ayaa dagaalka hogaamisa. xoogga dalka Soomaaliya sidaas ayuu ku galay dagaalka, isagoo arkayay qaladaad fara badan amaba waaweyn oo ay samaynaysay dowladdii Soomaaliyeed. Midowga Soviet
oo dagaalkan ka soo horjeeday Soomaaliya wuxuu yaqaanay dhammaan xeeladaha dagaal iyo meelaha aan ka jilicsanayn. sidoo kale waxaa dhib noqotay sidii qalab dayactir loogu heli lahaa hubkii midowga Soviet aan ku dagaalamaynay iyo sidii loogu heli lahaa kayd rasaas oo dagaalka lagu sii wado. markaasi wixii ka dambeeyay Soomaaliya waxay noqotay go'doon mana jirin cid kaalmaynaysay. dawladda iyo dadkii Soomaaliyeed markaasi waxay filayeen in ay taageero ka heli doonaan dalka Mareykanka, balse madaxweynihii ayaa diiday in xagga ciidanka laga taageero amaba laga kaalmeeyo. wuxuuna yiri waxay nala tahay in aysan Soomaaliya xaq u lahayn in ay weerarto dalka Itoobiya. dawladihii kale ee jeclaa in ay Soomaaliya caawiyaanna waxay ka baqeen labadii quwadood oo adduunka ugu waaweynaa oo aan ogoleen in Soomaaliya la kaalmeeyo marka laga reebo dawladda Ciraaq. ugu dambeyntiina bilowgii Febraayo 1978 ciidamadii huwanta ee Itoobiya, Kuuba iyo Yemen ayaa weeraro ku soo qaaday dhowr jiho oo ka mid ah magaalada Jigjiga, iyadoo ciidamada Ruushkana xagga cirka ka taageerayeen. maadaama ciidamo Soomaaliyeed oo aad u tiro badan ay ku sugnaayeen halkaas, dagaalkuna uu muddo dheer socday wuxuu sababay in faraha leesaga gubto, dhimasho badanna ay ka dhacdo. ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxaa uga shahiiday Allah u naxariistee ilaa iyo 3,000, halka kuwii isa soo bahaystana ay ugu geeriyoodeen in ka badan 6,000 oo ciidan ah. ciidamadii Soomaalidu gadaal ayay u soo gurteen, waxayna ku soo laabteen labadii gobol ee xoreysnaa. نابت دير بعض طاي دولة مجر دولة مجوب دولة مجر دولة مجوب داعي موجودي داعي موجودي. dhegaystayaal daawadayaal waxaan intaasi ku soo afmeeraynaa barnaamijkeenii gaarka ahaa oo aan uga soo hadlaynay waa maxay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, maxayse tahay marxaladihii ay soo mareen oo aan maanta uga soo hadalnay. waa sidee xaaladda ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, ma sahelaan xuquuqda aasaasiga ah ama xuquuqdooda aasaasiga ah, iyo sidoo kale qodobka labaad oo aan ku soo qaadanay darajooyinka ciidanka sida ay u kala sareeyaan, iyo qaybtii ugu dambeysay oo aan uga hadalnay maxaad kala socotaa dagaalka ay Soomaalidu inta badan ku faanto oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliduna ku muteysteen in loo aqoonsado in ay yihiin ciidanka ugu awoodda badan bariga Afrika. waxaa barnaamijka idin soo diyaariyay aniga oo ah Qaasim Nuur Maxamed. taniyo intaan dib ugu kulmayno barnaamijkan mid la mid ahna waa bahda udgoon oo idin leh. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. difaac qaranni maadu tahay daljira cadaaladaadu tahay naabadda dayr maadu tahay dowladnimo jir dowladnimo joog dowladnimo jir dowladnimo joog daacadii mawguudi daacadii mawguudi. دفاع مني ماذا تطاي دولة نمور دفاع مني ماذا تطاي دولة نمور ننقود إلى ليا تطاي دولة نمور ننقود إلى ليا تطاي دولة نمور دولة نمجوب دولة نمجير دولة نمجوب لا علي موجود.